ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ee sida gaarka u tababaranaya saaka waxay dagaal xoogan ay ku qaadeen deegaanka labada magac leh ee loo yaqaan Jiira Sham ama Sham Gare halkaas oo ay fariisin weyn ay ku lahaayeen al-shabaab muddo sanada ciidanka danab iyo al-shabaab ayaa waxa isku adeegsadeen dagaalka dhexmaray hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu qaatay dagaalkaasi saacado badan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa la tilmaamayaa in ay halkaasi al-shabaab ay uga gubeen laba doon iyo hubkii ay saarnaa iyo waliba dagaalyahanadii saarnaa oo halkaasi ku dhintay balse ciidamada ayaa u suurto gashay dagaalka saacado badan qaatay kadib inay la wareegaan deegaankaas ayaa waxa uu ahaa al-shabaab mid istiraatiiji ah iyadoo sidoo kalena deegaankaasi uu dhex marowbi sida uu inoo sheegay Ismaan Cabdi Duxulo oo ah isbatooro ka tirsan ciidamada danab waxa uu markaasi sheegay in al-shabaab looga dilay dagaalkaasi 17 dagaalyahan sidoo kalena dhaawac badan uu gaaray waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay sii wadi doonaan ilaa iyo markaasi guud ahaan shabaab laga saarayo dalka sida uu hadalku u dhigay ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ay markaasi uga hadlayaan dagaalkan ka dhacay deegaanka Sham Gare ayaa waxa horay lagu dhaawacay sida dawladda ay sheegtay kadib duqeyn ka dhacday afayeenka al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raaga Sheekh Cali Dheere ciidamada danab ayaa maalmihii dambe waxa ay dardar ku wadeen dagaalada ay al-shabaab uga soo horjeedaan iyadoona meelo badan oo kamid ah gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ee al-shabaab ciidanka xoogga dalka ay ka qabsanayeen Maxamed Yaxya Jiino Fef Somali TV Muqdisho